joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran naadiga kubadda cagta ee iyadu Hamburg ayaa ka qomameynaysa Valerie waayaha quruxda badan ee Jurgen Klopp isoo ku naaloonayo waxa dhacday bishii Febraayo 2008 ninka kooxda kubadda cagta Hamburg madaxda ka gaar ahaan agaasimaha guud wuxuu tala ahaan ku soo jeediyay in marka kooxda kubadda cagta Hamburg madax looga dhigo ninka la yiraahdo Jurgen Klopp madaxdii waa isla gorfaysay ninkan in madax laga dhigi karayo laakiin naanestiisa Klopp iyo waliba marka ninkan inuu sigaar cabadan yahay sabab ay u ahayd Valerie in marka loo diido kooxda kubadda cagta Hamburg waliba waqtiga dhaqaale fiican bay haystay kooxda kubadda cagta Hamburg meel dheer bay lagu la gaari lahaa hadii uu qaban lahaa kooxda laakiin nadiga kubadda cagta ee Hamburg waxay waqtigaasi diiday Valerie way isku khilaafeen markan waxay yiraahdeen ninkan naanistiisu wali wuxuu yaamale naga daaya kadibna Dortmund buu la tagay markaas wax badan buu la sameeyay kooxda kubadda cagta Dortmund uu la qaaday Real buu la qaaday koobka Jarmalka buu markaa kula guuleystay oo finalka Champions League buu gaaray haatanna Liverpool waxa uu la sameeyay Jurgen Klopp hadaba macalinka ugu fiican badunida wadu jeedam isaga yahay abaalmarinta marka waa ka hadaba nadiga kubadda cagta Liverpool ninka hadda macalinkada Hamburg way u shalaynaysaa Valerie hadii waqtigaas ay qaadan lahayd Jurgen Klopp marka sheekadiisa halka aanu kaga gudubno Paul Pogba wuxuu ka farxinayaa cushaaqda kooxda kubadda cagta Manchester United wuxuu leeyahay ma meeshan miyaa laga tagi karayaa bariyahan ba laga ma tagi karayo wuxuu yiri anigu inta garoonka iska dhex istaago kaliya inaan sacbiyo oo aan u sacabtumo kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iga soo haray buu leeyahay wuxuu ka hadlayaa bandhiga cajiibka ee kooxda kubadda cagta Shayatiin al-Humur iyo waliba wiilashooda ay sameynayaan wuxuu yiri kooxdu soo wanaagsan ay markaas iyadoo haatan soo wanaagsananaysa marka la fiiriyo hore iyo hadda ku raaxaysanayna buu yiri anigu wuxuu yiri aad baan ugu raaxaysanaya kooxdu si wada jir baan u weerartana waan soo noqonaa buu yiri Bruno iyo waliba marka Rashford Martial Greenwood bandhigiisa markaad aragtid buu yiri adigu wax kale ma sameyn kara buu yiri inaan u sacabto mooyaane waxay iga yeeleen buu yiri inaan ku raaxaysto kubadda cagta marka wiilkan tan waxay keenaysaa baa leeyahay isagu hadda inuu sii joogo mustaqbalkiisa wuxuu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay kooxda kubadda cagta Manchester United isla markaana waqtigiisa uu ku raaxaysanayo tan ayaa Saka iyo waxa laga weydiiyay ninka la yiraahdo Solskjaer waxa la yiri ka waran Pogba idin ka baxaya warar baa leeyahay wuxuu yiri Pogba waxaan jeclaan lahaa anagu in markaasi uu nala sii joogo isaga iyo waliba dhamaan xidigaha kale macnaha wuxuu ka hadlayaa xidigaha ugu fiican naga ma aadayaanbo sidaas buu leeyahay marka United waxay danaynaysaa Paul Pogba iyaduna in Real ay ka cishato Real Babrihan ba markaas iyadu doonayso rabtay Zinedine Zidane ba wax laga weydiiyay kulamada kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba xaaladdu siday tahay wuxuu yiri anagu kama hadlayno kooxaha kale marka la fiiriyo laakiin waa ku raaxaysanay inaan daawado kooxaha kale daawashadoodu Barcelona waa daawanaya buu yiri intaan awood aniga laakiin ma jecel buu yiri inaan ka hadlo haday fiican yihiin haday xuyeenba sidoo kale wuxuu ka hadlay kulanka marka Alaves wuxuu yiri anagu waan u dagaalami doonaa inta ka haray Realku isla markaana waan sii wadi doonaa oo kastaba final ba ciyaari doona buu leeyahay Zinedine Zidane samarkan wuxuu yiri afar kulan baa inoo hartay afarta la liiga inoo hartay wuxuu yiri waan u dagaali doonaa sida geesinimada leh ayaan markaas meel dheer doonaya inaan gaarsiiyo leeyahay kooxaha marka ugu disciplineka xun ayaa la soo saaray isla markaana jaalayaashii waliba roosayaasha urursado ma taqaanaa kooxda meesha ugu sarreysa ka fadhida iyagu hadaba kaalinta koowaad marka ugu hooseyso waxa ka gashay marka disciplineka Arsenal ayaa noqotay baa leeyahay kooxda ugu disciplineka xuno 3 kaar oo hurud ama jaalaha ama dignina ayaa la siiyay waliba 34 kulan ee Premier League ay ciyaareen 5 roosana waa qabaan waliba kooxda marka ugu akhlaaqda wanaagsan ama marka laga hadlayo discipliinka kubadda cagta ciyaar wanaaga Liverpool baa qaadatay kaalinta ugu sarreysay iyadoo ka gashay Liverpool marka laga tago Arsenal ayaa waxay tahay kaalinta marka iyagu meesha ugu hooseysa bariyahan oo urursadaan wixii markaas iyagu jugle ka soo hartay inay dadka dilaan iyo bariga marka saas baa leeyahay marka David Luiz ayaa qaatay wad ogeedeen kadibna Inkita ayaa ugu dambeeyay casaan qaatay marka 73 jaale ay qaateen bal Arsenal sidoo kale 34 kulan 5 casaana ay sidoo kale qaateen dhowr ayaa jira marka Watford iyo waliba Tottenham Bournemouth iyo Man City iyo waliba marka waxaas idil waxay Man City oo kale xitaa kaalinta marka ay ugu jirtaa kama dheero Arsenal iyo Watford waxa u dhaxay Arsenal iyo waliba Man City waxa u dhaxaysa Watford iyo Tottenham iyo waliba Bournemouth marka sidaas baa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal discipline waxa ugu xunbay meesha ugu hooseysa ka fadhida Robertson wuxuu marka la maadeystay isla markaana la qosay ninkii Mohamed Salah waxaan tan ka dambeeyay waxaad ogeeday xaladda gool buu ka caawiyay Mohamed Salah koornayd markii la soo qaaday
maxamed salax oo madaxa dhaliyay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka uu soo dhigay wuxuu yiri warniyo adiga ma ku wadin buu yiri ninka dhalashadiisa maanta ay ahayd ayaa ugu talagalay kubadda inuu dhaliyo laakiin adiga niyo wuxuu yiri dadka dheeraaba ugu talagalay maxay tahay adiga maxaa saas ku bootiyay buu yiri macnaha uu la kaftamaya inuu kubaddaas madaxa uu ku dhaliyo waa gaaban tahay adiga ninka dheer baa ugu talagalay Virgil maxay tahay buu yiri adiga maxaad u dhalisay xilliyeedka dambe horyaalka Premier League goorma la bilaabaya goorma la soo xiraya ayaa marka hadda dood ka taagan tahay hadda waxa Premier League ay sii qorsheynayaan baa leeyahay oo ay hadda isku raacayaanba 12 bisha September inay noqoto waqti ugu dhow marka bisha August 2029 ayaa la tilmaamay laakiin ma socon doonto baa leeyahay 12 bisha September kama soconayso waqti ka horeeya in marka la bilaabo laakiin waxa jira naadiyaha halis ugu jira sida naadiga kubadda cagta Man United iyo Wolves iyo Man City kuwaas oo tartamada Europe ciyaari doono kulamada ugu horeeya jadwalka iyagoo hadii Champions League iyo Europa League ay ciyaarayaan way ku adkaan doontaa baa leeyahay in marka ay ka qayb galaan hadii marka 12 bisha September iyadoo laga dhigo marka waa kaayo horyaalka Ingiriiska oo xilaareedka cusub baa laga hadlayaa September 12 hore laga bilaabaya August markii Champions League la ciyaaro September hore baa laga bilaabaya marka koobka horyaalka Premier League marka Ingiriisku waa ka diyaar garoobaya wuxuu leeyahay waan bilaabaya Chelsea waxa leeyahay hadda xidiga N'Golo Kante uu iibinaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid bay ka iibinaysaa Real Madrid si iyadu ka haftas u hesho Madrid baa laga iibinaya baa leeyahay xidiga la yiraahdo N'Golo Kante waa duwan baa loo doonaya waad aragteen ninka Frank Lampard isagu hadda nadiga kubadda cagta Blues waa ka diraya hadiiba KFC uu helayo wiilka Havertz kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen wiilka isagu safkooda ka tirsan hadiiba uu helayo waa ka diraya baa leeyahay kooxda kubadda cagta Blues marka wiilka way diri doontaa Rivaldo wuxuu ka digayaa bandhiga kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu leeyahay waxa kaliya ay walwalgelinaya waxay tahay marka Champions League ay ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Barcelona sababtoo uu yiri kulanka Napoli wuxuu yahay mid aan sahlanayn isla markaana jamaahir ma joogto buu yiri garoonku waxayna u baahan tahay kooxdu wax walba u sameeyso sidii ay u gudbi lahayd Rivaldo ayaa loo sidoo kale wuxuu kula taliyay in waqti horeba iska soo gabagabeeyaan heshiiska Lautaro Martinez sidoo kale muhiimad gaar ah ay yeelaan ninka Neymar Jr hadii la keeno buu yiri kooxdu heer markaas fiican bay gaari karaysaa markaana isagay Messi oo xoogeysan karayaan buu leeyahay nadiga kubadda cagta Real Betis waxay macallin ka dhigatay ninka la yiraahdo Manuel Pellegrini tobriyo hore kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Man City ayay macallin ka dhiganaysaa markaana ninkan kooxda dhowr buu markaas isagu soo leeliyo Premier League xitaa 2013 buu la qaaday kooxda kubadda cagta City buu kula guuleystay kooxda dhowr Malaga iyo Villarreal iyo kooxo kale buu markaa hore u soo leeliyay hadda ninka Chile u dhashay ayaa la yahay kooxda kubadda cagta iyadoo Real Betis ayaa si rasmi ah booskaas marka ugu magacawday bayaan rasmi ah soo saartay waxa la yiri ninka Chile u dhashay ayaa loo dhiibayo kooxda koowaad isaga ayaa xilaareedka soo aadan macallin noqon doona xilaareedka soo aadan marka isaga ayaa macallin noqon doona baa leeyahay marka waa ka nadiga kubadda cagta Everton waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Gabriel wiilka Lille buu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Chelsea iyadu way doonaysaa Brian buu rabtay Arsenal xitaa way rabtay nadiga horyaalka wadankaas Ingiriiska waxay hadaba sii qorsheynayaan baa leeyahay in dib ay nadiga horyaalka wadanka Ingiriiska waxay dib u dhigeen waqtiga si rasmi ah marka loo furayo suuqa kala iibsiga ama suuliinta naadiyada ayaa marka kulan kala yeelan doona oo taariikh marka dib laga sheegi doono baa leeyahay kuwaas oo ka arinsan doona waqtiga naadiyada iyada suuqa dib u bilaabi doonaan xilliyeedka soo aadan marka waa ka hadaba naadiyada marka sheekada halkaan ka gudubno Chelsea dharbaha culus baa marka soo gaartay xidiga la yiraahdo Gilmore isagu waa uu dhaawacmay isla markaana sheekada waxa leeyahay xaalkiisu ma sahlano xilliyeedka inta ka hartay isagu lama heli doono dhaawac dhanka jilibka iyo Payne Gilmore wiilka cajiibka wiilka weedan ka dhaawacmay plus marka waa ka nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal waxay u dagaalaysaa markaan uu cararaysa xidiga la yiraahdo Thomas Partey maalimada Britola koobka UEFA Champions League isku adkiisa ayaa la sameyn doonaa wareega xiga ayaa markaa isku adkiisa la sameyn doonaa iyo waliba inta ka hartayba sababtoo ah kooxo waxa jira ilaa hadda aan soo bixin iyo kooxo soo baxay wareega iska xadiriyay hadda fiiri Atlanta Athletic Madrid Leipzig iyo Paris Saint-Germain iyagu waxa xadiro hore bay markaas iyagu shaqaysteen Bayern Munich lug baa u harsan Barcelona iyo Napoli lug baa u harsan Chelsea Bayern bay isugu dhiman tahay Man City iyo Real way sugayaan Lyon iyo Juventus iyaguna way sugayaan isla markaana way isku dhiman yihiin marka waa kaayo Britola isku adka waa la sameyn doonaa waxaana sidoo kale lagu ogaan doonaa iyadoo sidoo kale hore baa loo sheegay waqtiyada la ciyaarayo oo waxa la ciyaari doonaaba 15 ilaa 12 inta u dhaxaysa bisha August kadibna marka halka baa laga sii wadi doonaa iyadoo todobada la sii bilaabi doono August kulamada haray ee marka hadda lugta kuwan u harsan iyo waqtiga la soo gabagabeyn doonaa baa leeyahay waliba waqti yar ba gudii baa lagu soo gabagabeyn doonaa sidoo kale isku adka Europa League ayaa iyaguna la sameyn doonaayo Istanbul Başakşehir Olympiacos Rangers iyo Bayer Leverkusen sidoo kale naadiga kubadda cagta marka Wolves iyo waliba Shakhtar Donetsk naadiga kale Inter iyo Getafe iyo waliba Sevilla iyo Roma Man United iyo waliba Lask sidoo kale Eintracht Frankfurt
iyo Basel baa lagu leeyahay iyo waxaynu ku sugaya marka isku adkay heli lahaayeen marka waxa soo idil waxaynu waxyaabo xiiso badan oo Britole iyagu laga diiwaan gelin doono quarter finalka 12 bisha August ilaa 15 18 iyo 19 semifinalka 23 bisha August waa soo gabagabeyn doona Champions League baa leeyahay marka waa ka Lisbon bana kulamadaas soo idil ka dhici doonaan wadanka Portugal doon dhulkiisii baa leeyahay isla markaana Europe League soo kale August 10keeda 12 bisha August semifinalka 16 bisha August ilaa 17 ka tagin 12 bisha August finalka Europe League baa la ciyaari doona marka waa ka sidaas baa leeyahay Real Madrid waxay dhigeysanaysaa dalab kasto ka imanaya wiilka leeyahay Jovic safkeeda waa uu ka baxaya baa leeyahay wiilkan nadiga kubadda cagta Madrid gibi ahaanba way isaga dhamaan doonaayo wararka waxay ku ugu dambeeyay la qorayo iyadoo Madrid suurtagal ay tahay suuqa inay dhigto xidigan inkastoo Zizou uu leeyahay ninkan mustaqbal buu leeyahay sanadaha soo aadan waa noo dagaalami doona nadiga kubadda cagta iyadoo marka Madrid ayuuna marka safkeeda la sii joogi doona sidoo kale nadiga kubadda cagta Dortmund waxa leeyahay Jadon Sancho waa isaga dhamaanaya kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa aatan ugu dhow gaar ahaan ninka leeyahay Michael Zug waa madaxa ciyaaraha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund wuxuu leeyahay kooxda iyadoo hadda waxay doonaysaa weeriyahano بدل النقطة نيكل هذا جادون سانشو سمركان نيك هدي ويونايتد كبيرو حليه بدل كذا مربع هدي ستا سيتاي يونايتد بقول مليون يا بقول لا تمني بس عطيه لكن يونايتد ونركض هدي العقد بحنا سولو لا شيء حد جنينا يسوعنا يعني سمركان يسوون يسوقوا وين مركا واكا وركا هو كوي وجودا بيه عالم كبد عقده وحلا قريو لليه نادي كبد عقد مانشستر حدقة ويسوق أهان دونان وليش عجيب كإنتر ميلان يجونا سنة كم على جرى وريال كنا يوتر طبعا لكن يجونا ميلر ميسن جارين هذا كيليان إمبابي يولي بمركا ريال كيسو حليه هاي فرانسيسكا ليجوانك وحل أستيي إن لبي لباتنك لا يصدق لباتنك بيشا أغسطس سر رسمية تضبط كجوري لا باس دون حليرات كلا بكل لباتنك لباتنك معناه وعيتاي حليرات كحوب بالأمانية لبي لباتنك لا يصدق لباتنك بيشا أغسطس ريال كودن كاسي فرانسيسكا marka waa ka sheekooyinka Faransiiskuna waa kaayo maanta oo kale ay ahayd sanadkii 2006 markii Talyaanigu koobkii dunida ku guuleystay markaas oo Faransiiska u garaacay habeenka Zinedine Zidane rigoor cajiib bayd buu dhaliyay kadibna casaan buu qaatay ninkii marka wadnaha ku dhuftay weertiyay ninka la yiraahdo Materazzi ninka baa qootay kadibna sidaa baa loo galay casaan baa la siiyo marka waa ka xusuusta bay ahayd maanta isla markaana xusuus uusan jeclaysanin ninka la yiraahdo Zinedine Zidane qaabkii garoomada uga baxay Mas'uud Ozil caawintii uu sameeyay tani intii Madrid iyo waliba Arsenal uu ku biiray 17 caawin buu sameeyay 2011 Real Madrid baa leeyahay 12 isagoo Madrid buu 17 kale u sameeyay 13 wuxuu sameeyay ninkan 13 caawin waxa lagu leeyahay Mas'uud Ozil 13 waxa uu isagu sameeyay Arsenal 9 caawin sidoo kale nadiga kubadda cagta Arsenal 15 buu 5 caawin u sameeyo 2015 Arsenal buu ka csanaa 19 caawin buu sameeyay sidoo kale 17 caawin buu sameeyay استدعى وحو سميه 17 لبا عاون بو سميه 19 20 كان وحو سميه لبا عاون سعود اوزيل وقتي وكعسنا وسو مره لكن هذا ما غدان حبنته ورarkeena wanaga inta